السلام عليكم. أبوك وما حصلت هاي بلغة البطل. سؤال ولا مسوي سوي جلسي. وطن كعرض دولة بقولتي ودولة إسكال شعبك for the people by the people and from the people. مركا تغير وين وشعب جوه ستا ملك استنا ولوج البلد يعني وحقول له باهي هاي بلقات كي دولة بلقات اللي في السوق وطن كان dhibaato badan oo soo maray dadku way dhibtoodeen dagaal isku ka soo waxaa helay xataa mashruuca badan laga dhex furay projects oo loo diiday nabadda waxa ugu horeysa xataa dadka Amazon keenay oo maanta dadka xataa u qabanayay marka waxaan rajaynayaa horta inaan maaragtay Amazon lagu bedelo ciidan Soomaaliyeed oo qalabkooda iyo hubkooda iyo mushaaraadkooda iyo benefitskooda iska leeyihiin waxaan kaloo rabaa in maxay ahayd haddii dowladda ilaahay garab galo waa dowlad dadka doorteen inay wadankii meesha maanta ku jooga inay meel fiican geyso siday u balan qaadan inay musuqmaasuq siday sheegay inay la dagaalamaan kuwa dadkan baahida dishay oo abaarta leysay waxaa resource-kii oo la keenay wadankii dad baa jeebka gashtay marka resource-kii waa inaan dadkii shacabka service lagu sameeyaa meel kasta la geeyaa si ay dadkii u helaan macaanafaad iyo u helaan benefits laakiin haddii dadkii resource-kii haddii dakhligii waddanka laga qaaday ama wixii dibadda laga keenay ama wixii kaloo maaragtay dowladii kale lagu caawinay haddii 4 qafood oo madax kala qaybsadeen ama luuqa la gashtay dadkii yaa u maqan marka dadka waa dhamaadeen waxaan rajaynayaa inay musuqmaasuq la dagaalamo dadkina loo shaqeeyo because dowladda waxaa ka saaran mas'uuliyad in ay shacabkeeda u shaqeyso wadaad end of the day adiga waxaa madax u tahay shacabka marka waxaan rajaynayaa dowladda cusub inuu ilaahay maaragtay garab qabto ummaddana waxaan u rajaynayaa inay la shaqeeyaan because waxaa waaye dowlad la-aan dowlad xun waxaa ka daran dowlad la-aan at least dowlad hadda bilaabato oo shacabka raali ka yihiin marka dowladdina waa inay dareentaa waajibka saaran in wadankii dacad u noqdaan inay wax u qabtaan iyo in ay xataa dadkan oo maxaan dhahaa MP-yaasha oo baarlamaanka iyo wasiir isku noqdeen taasna inay wax ka qabtaan markay qof laba mushaar inay qaataan xaq ma aha marka waxay u baahan yihiin in la yidhaahdo either inay noqdaan baarlamaan kana kala suulaan wasiirkii amba wasiirka noqdaan oo baarlamaan kana kala suulaan ma suurtooda inay wadanka ay matalaan shacabka haddana laba gees wax ku cunaan that's wrong marka taas aan u talinahay inay ka dagaalamaan waxa 4.5 ka la sheegaya inay naga dhaafaan Soomaali waa mid Soomaali unity laga shaqeeyo marka taas aan kusoo dirka qayb